أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabnaa inaan sameyno cashar OSPF ah. OSPF insha Allah softwarekan isticmaalayo iyo routerada isticmaalayo waxay hoos yaalaan videogan hoostiisa ka soo fiirsada insha Allah. Videoyada kale oo dhan waa soo sharaxay marka waa ku celceliya taas si fiican dadka inay fahmaan ugu talagalay kulay meesha ka fiiriya. Hadda waxaan sameynayaa routeradii. Okay, router 1, router 2, router 3, router 4, router 5. So easy. Waxaan u sameynay EHRP. Waxaan kaloo sameynay RIP. I think static waa soo sameynay EHRP. hadda waxaan rabaa inaan sameyno OSPF. waxaa sii dhiman RIP iyo BGP protocolada oo routerada isku gudbinayo. waxaa kaloo sii dhimaanaya tunnel. Okay, connectionkii aan sameynaa. maadaama OSPF kaliya aan sameynayo uma baahni PC lama baahno der maadaama OSPF kaliya aan sameynayo. Okay, waxaan leeyahay start. waxaan kaloo leeyahay waxaan sameynaynaa OSPF aan sameynaynaa. waa open shortest path first OSPF intaas la soo gaabiyay. Okay, kan ka rax markaanaytay saan soo gelin and then routeradu waa tanay. Okay, kan ka soo bilaabo console 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 marka waxaan ka bilaabaa router 4 kaas config interface %0/0 address 192.168.4.4.255.255.255.0 no shut present. waxaan ku degan router 3. router 3 attack config interface internet 0/0 IP address 192.168.4.3.255.255.0 shut pin 192.168.4.4 inuu pin kareenaya si fiirino daasiid exit interface gigabyte 1/0 IP address 192.168.3.255.255.255.0 no shut exit and video app. waxaa ku xiga router 1. Okay, router 1 config interface gigabyte 1/0 IP address
192.168.3.1 255.255.255.0 no shut do pin 192.168.3.3 ثانية كاسمة exit ده بس كل شيء يمكن هي fast internet interface fast internet 0/0 IP address 192.168.1.1 255.255.255.252 no shut router 2 تاgasna router 2 waxaa ku dhegan fast internet 0/0 okay router 2 config interface fast internet 0/0 IP address 192.1.2.255.255.252 مغلدني صح shut ping 192.168.1.1 haduu ping gareeyo waa sax okay waxaan kusii dhejin asna 1/0 exit interface gigabyte 1/0 IP address 192.168.2.255.255.0 no shut and you are router 5 okay halkan waa gigabyte 1/0 kan waa fast internet 0/0 waa kala gedis yihiin haddana waan isku daynaa waan shaqeynaa waa inuu shaqeeyaa waa shardiga saas ah config interface gigabyte no fast internet 5 fast internet 0/0 IP address 192.168.2.5 kan waan soo siinay 2.2 255.255.0 no shut and pin 192.168.2.2 wuxuu bingareynayaa laakiin ma bingareyn karo qaybtan dambe haddaan rabo qaybtaas inaan tago halkaas waa inaan tagaa 1.2 ma bingareynayo ma yeelayo saas darteed hadda waxaa u baahanahay OSPF ama EIRB ama waxaa u baahanahay RIP ama waxaa u baahanahay BGP waa badiyihiin ama IP static hadda OSPF aan sameynaynaa config OSPF router OSPF kan waa 5 network waxaan sameynay 192.2.5 space 0.0.0.255 OSPF wuxuu isticmaalaa marka area 0 wixii hal area la ah waa isbingareyn karaan wixii areada kala gedisan ma isbingareynayaan ayagana waa inuu soo sameeyaa waxa la dhahayo router redistribute markaas ay hadda kaas ma sameynayno OSPF kii aan sameynayna insha Allah okay and router ku xiga tag
config t router osbf 2 iska reesna. Okay, network 192.168.2.0.0.255. okay, kan wuxuu qaataa waxaa la dhahaa meeshan 0.0 aan ka bilaabayo wildcard mask wax la dhahayo qaataa osbf-ka. kuwa kale dhan ma qaadanaynin wildcard-kaaseti osbf ka gedisan iyo area 0. haddii areadan ay kala gedisan tahay isla ma shaqeynayo, laakiin kan dhibaato ma lahan. EIRB-gana kanad muhiim ah haddaad fiirsan videogii hore haddaad hore soo fiirsatay. okay, maanta rabaa kan kale inaan soo sameeyo waa 1 router dhinacan jiro waa inaan soo sameeyaa 1 kaaseti isna 1 subnetkiisa muxuu ahaa kaas 1 subnetkiisa muxuu ahaa waa kan 255 waxaa kaarsan 3. okay, triida halkan waa kareta wildcard-kiisa waa sidaas kan waa ka gedisan yahay kaasi. okay, and wr okay, hadda router 5 iyo open gareynaa waaye wuxuu hadda naga diidan maxay ahaayeen gadaal usoo laabo .1.2 dhinacan jiro soo diidana hadda caadi open gareynaa .1.1 open gareynaa waaye ma open gareynayo sababtoo ah anta ma laga soo fasaxin haddana .1 waa inaan tagnaa markaan config t router osbf 1 iska leh network 192.168.1.0.0.3 area 0. hadda kaasaan sameynay area 0. hadda kan caadi open gareynaa markaan wuxuu hadda diidanaa waa kan ma open gareynaynin hadeer hadda waan open gareyaa markaan weli open gareynayo weli ma uusan baranin. hadda kadib bayna isbartaan ilaan kan weli waa ku dhex jiraa dhexdiisa kama soo bixin markaa fiirisid 1/0 marka haddii laga baxo caadi open gareynaya adiga hadda kama taagna. okay, intaan ka bixin ka hor waa inaan kan sameeya asna gigabyte 1kaas waa inaan sameeya. hadduu soo helay hadda fiiri anoo sii sameynayo halkan wuxuu soo helay processor 1 neighboran leeyahay oo dhahay neighborkiisa waa kan neighboran leeyahay oo dhahay 2/2 neighbor yahay oo dhahay loading full load done oo dhahay. hadda haddii aan dhaho marka benkeeda aan ku celiyo caadi u shaqeynaa waa kaas marka horena ma shaqeynaynin marka waa kaas kan marka si aan u sameeyo kan ku xigo kan waa 3 I think 3.1 3.0 halkan waxaa ka dhigtaa 255 sababtuna waa halkan ay kada waa 0. okay, oo area 0 ah. okay, router 1 waa ka dhamaaday isna and wr router 3 ga brief waxaa ku jirto 43 config t router osbf router 3 waa 3 iska dhaasna network 192.168.3.0.0.0.255 area 0. another network waxaa dhahdaa waa 4 I think waa 4 and wr router 4 ka tagasna xabxabda ku jirasna waa kan config t router osbf 4
network 192.168.4.0 wuu diidayaa wildcardka ka maqan wildcardka ka maqan 255 iyo area 0 and WR network show IP interface brief haddaad aadid 4.4 isna kan maxaan ka haysanaa halkan 4.4 kan marka waa inaad geeskaas gaaraa pin 192.168.4.4 weli kan ma soo siinin OSPF kan soo sameynay ma soo kicin waa sameeyey ma kacay waaye weli ma kicin hadduu soo kacay hadduu soo helay pinka hadda la sameeyey waa kan hadda caadi u shaqeynaa marka hadda ku laabatid caadi u shaqeynaa waa kaasa trace root marka 192.168.4.4 intee loo maray waxaa la maray .2 router 5 waxaa ku dhegan halkan waxaa ugu dhegan .2 waxaa ku dheganaay waa kan .2 waa la maray .1 oo dhinaca city la maray haddana .2 waa dhinacan .1 waa dhinaca city haddana .3 aa la sii maray oo dhinaca 80 ah yani gigabyte 1 router 3 ga ah .4 markaas la soo gaaray waa trace root wireshark OSPF kama na siinaa waaye oo na siinaya haddaad dhahdid saan wireshark waa kan wireshark wax kasta oo ku tusinaya badanaaba dadka u baahan maadamii update ma rabaan iyo adeer waa kan OSPF samaadi 3 hello packet ay sameynayaan waa OSPF ka isku barbaranayaan haddana saan trace root muxsinasi waa kaasa waxaan sameynayno oo ISMP ga iyo UDP la isku diraayo oo trace root oo raadinayo waa ka soo siinaya haddaan dhaho pin waa ku siinaya waa kan ISMP pinkaasna icon waraaqda la diray reply oo ku siinaya dad isku diraayo habeen wanaagsan OSPF saasan ku dhameynay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh